cadooyinka la yaab kale dalka Sacuudiga ka dhacay ayaynu ku guda jirnaa isaan horeba u soo sheegay nin baa wada guursaday 4 dumar oo kaaga darana 4 dumar iyo kala yihiin ardayad macallimadeedii maamulihii dugsiga iyo waliba haweeneydii kormeeraha ka ahay dugsigaasi kaasi malaa waxaba la oran lahaa wasaaradii waxbarashada inuu guursadun baa u hadhay shantii bishan aynu ku jirnay March ayaa wargeysyada waxa lagu soo daabacay gabadh macallimada oo warbaahinta la hadlaysa gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyay iyada iyo ardayadeedii maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo waliba haweeneydii kormeeraha ahayd cajiib sheekadaasi wadwadi karimayne aan soo dhaweeyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan stuudiyaha igu weheliya Cabdixakiin sare aad baad mahadsan tahay horta ninkani dabcan waxa la yiraahdaa qofku waxaan ku naqaan markuu reer sameeynaya ama guursanayo inuu waxa la yiraahdaa tafaariiq ku qaataa marbu guursanaya hadana mid kale guursanaya hadana inta diiniyan afarta uga shay ninkan waxa la sheegay inuu yahay nin Sacuudiyaan ama u dhashay wadanka Sacuudiga 40 haweena marbu wada guursaday 4 haweeney dabcan haba guursadaba 4 wada qababa arrinka muujisada iyo cajiibka noqotay dunida indhaheega soo jiidatay waxay noqotay in 4 haweeney hal meel ku wada sugan yihiin hal dugsi bay ku wada sugan yihiin waxaana kala yihiin ardayadii wuxuu guursaday ardayadii hadana macallimadeedii uu guursaday hadana kormeeraheedii ama waxa supervisor kale dhaay guursaday hadana maamulihii dugsiga ama principalka wixii la oranayay ayuu qaatay marka waxa weeyaan 4 qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayuu guursaday aad iyo aad marka maamulihii iyo ilaa ardayadii 4 waxay ka kooban yihiin maamulihii supervisorkii ama kormeerihii macallimadii iyo ardayadii ma hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday saaray ninkan oo ah nin kontonjir isla markaana seen horaba u sheegnay Sacuudiyaan ama u dhashay wadanka Sacuudiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga uu ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka Jizaan wadankaasi Sacuudiga ka tirsan dabcan waxa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday markii hore dabcan inanta uu guursaday kadibna uu kuwa kale uu ka wada dabagay haatan ay 4tooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay guri iyo qoys iyo waliba reer wada yeegaleen 4toodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midbada shaqadeedii gaarkii tii ardayda ahayd wax wali iskuulkii ma ka barataa maamulihii iyo macallimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan waajib 4tooduba meesha wada yimaadaan aroortii u soo wada kalahaan way soo midno qaarna waa soo shaqo tagaan qaarna waxbarasho u soo doontaan waxaana xusid mudan gabadha macallimada ah ee kamid 4 haweeney warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaanay wax isbedel ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay 3 haweeney kale oo ninka odaygii wada qabay inay meel wada yimaadaan ay subaxii sarkaan oo meeshii soo wada yimaadaan saynu ka warqabnana de sahray aalaaba dhaqanka ay ku naqaan iyadoo diinta uga shahay 4 haween oo nin oday wada qabo si ku heshiiyaan baaba adagba haweeneyda laakiin waxay leedahay maba dareema wax farqiya inaan 3 kale meel la joogo marka way wada yimaadaan dugsiga waana qaarna soo shaqo tagaan qaarna waxbarasho soo doontaan cajaayib de waxaan arkay dadka commentka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaasoo nin baa yidhi dee aniguba maamulaan ahoo dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo dee midna kamaan guursan Cabdixakiino wuxuu ninkaasoo aan iskuulka isagu ka tirsanayna banaanka ka yimidna 4 dumar haadba wuu xaabsaday waxa laga hayay ka warqabnay Soomaalidu way mahmahabadeen mahmaaya kaftankooga aad u badan markii waraaba laga mahmaayo waxa la yiraahdaa waraabihi baa inta soo eegay daanyarka way naqaanayo tabacas buu leeyahay inta soo eegay buu waxa baahi haysay waxay bari walwaalays marka qaar badan oo nolosha aan wax badan ku haynin marka ninka wadaga arka dabcan mahmaaha badan oo qaar kood aan horeba u jirin ayaa waxa suurtagal inay kaba timaado hase yeeshee waxa xusud mudan in ay dadku aad uga dhaxdoodeen dhinaca warbaahinta aad uga doodeen gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media qaarkood way u duceeyeen ninka wadaga waxay yiraahdeen ilaahay ku astur 4 xaas qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa ninka adoygii marba hadii uu karayo awood ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba diiniyan iyo sharciyan loo ogol yahay wax dhibay shidii kuma jirto qaarkoodna waxay leeyihiin wallahi waxaan u naxsanahay 4 haweeney meel la isugu keenay halkan nin wada qabo aroortii meel isugu wada imanaya dabcan ninka odayga ku wada abtirsanaya marka way ku kala duwan yihiin weli dadku aad ba lagu kala fikir duwan yahay waxa ka sii daran de inantii ardayda ahayd oo maamulaheedii iyo macallimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo de marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayay de waxa kaga soo horeysa dangaladii kale imtixaankii iyo casharadiina de macallimadii baa halkan joogto oo iyadana ay isla dangala yihiin marka xaaladaas waa xaalad murugsan de waxaan u malaynayaa baaq bay ka soo saaray bahda waxbarashadu waxa suurtagala
inuu isagu ka heshiisiin doono noqon doona hadday kuba adkaysa iyadu amaba ay wuxuu kusoo dhex maraan dugsiga aad iyo aad cabdi xakiin waad mahadsan tahay adiga